السلام عليكم دمان daawadayaal ma ogtahay in hal dabeecad yar oo ay noloshaada oo dhan bedeli karto ma aha hal go'aan oo weyn balse waa wax aad maalin kasta samayso maanta waxaan ka hadli doonaa buug si dhab ah u bedeliyo fikradaha malaayiin qof oo la yiraahdo Atomic Habits waa buug uu qoray James Clear wuxuuna ka hadlayaa sida dabeecadaha yaryar marka la isu geeyo ay u horseedi karaan guul weyn. Buuggan ma aha mid kaliya wax kuu sheegaya balse wuxuu ku barayaa sida ficil ahaan aad u samayn lahayd. Ereyga atomic wuxuu ka yimid dhigan yahay ama ka yimid wax aad u yar laakiin ha yaraysan haddii aad boqolkiiba hal ka fiicnaato maanta biri iyo biri dambe isbedel weyn ayaa imaanaya. Dad badan waxay rabaan natiijo degdeg ah laakiin buuggan waxa uu ku baraa samir iyo joogteyn. Buugga waxa uu leeyahay ha iska dayin inaad bedesho natiijada balse bedel aqoonsigaaga. Ha dhihin waxaan rabaa inaan noqdo qof guuleysta ee dheh anigu waxaan ahay qof maalin kasta horumar sameeya. James Clear waxa uu sharxayaa 4 xeer oo dabeecad kasta lagu dhiso. Ka dhig mid muuqata. Dabeecadda koowaad. 2 ka dhig mid soo jiidasho leh. Ka dhig mid fudud. Ka dhig mid abaalmarin leh. Haddii aad rabto dabeecad xun inaad joojiso samee lidkeeda. Haddii aad rabto inaad barato crypto ama ganacsi online ama aad caafimaadkaaga hagaajiso wax walba waxay ka bilaabmaan hal dabeecad yar oo joogto ah. Ma aha inaad dhammaan wax walba samayso hal mar. Haddii aad maanta hal dabeecad yar hagaajiso mustaqbalkaaga ayaad bedeshay. Buuggan waxa uu ka barayaa in guusha aysan degdeg ahayn balse ay tahay mid la dhiso. Haddii aad ka heshay videogan like saar fadlan subscribe na noo page.